agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland oo weheliyo taliyaha laanta socdaalka ee Somaliland ayaa sheegay baasaboorka Soomaaliya ee Fultiriga ee lagu sameeyo meelo kamid ah Somaliland in aan dalka lagu soo gali karin isla markaana aan laga bixi karin. Waxay sidoo kale dadweynaha reer Somaliland ay ugu baaqeen in aanay lacagtooda galin baasaboorka Fultiriga ee Soomaaliya ee lagu sameeyo meelo kamid ah Somaliland iyagoo arrimaha ka hadlayana waxa hadaladoodii kamid ahaa sida tan hore aan uga hadalnay oo runtii ku saabsan baasaboorada forgery-ga ee Soomaaliya ee lagu sameeyo Somaliland taasan ka hadlaynaa maanta runtii hore aan uga hadalnay laakiin maanta waxaan uga hadlaynaa baasabooradaas in aan lagu bixi karin laguna soo gali karin dalka Jamhuuriyadda Somaliland cidii ku soo gashay ama cidii sameeysan dambiilo qaran ay tahay qaar badan hore aan qabanay kuwa kale nimankan ku daba jirno taliyuhuna runtii iminkaysana wixii faahfaahina taliyaha immigration Somaliland ay halkan noogu sheegi doonaan macnuhu wuxuu daaran yahay in dadweynaha la fahamsiiyo mar kale baasaboorkaas Soomaaliya sida forgery-ga qarsoodiga loogu sameeyay Somaliland oo dadweynaha qaarkood qaateen oo ciidamada ay ka hawl galeen in la qabto meelaha lagu sameeyo lana qabtay maxkamadana loo gudbiyay cidii qaadatay inaanay kaga dhoofi karin oo kaga bixi karin kuna soo gali karin garoomada iyo xuduudaha meelaha laga soo galo Somaliland markaas arintaasina waxa weeyaan arin ka xagga immigration-ka document ama travel document la forgery gareeyay in cidna ku dhoofto cidna ku dhaqanto marka horeba waa xaraan ka dalkeena lagu arkay ciidamada horeba u qabteen ee maxkamadda loo gudbiyay cidii qaadatay ee suurta gashay inaanay isku halayn inay kaga dhoofaan maxaan ku dhahdaa garoomadeena iyo meelaha kale ee laga soo galo ama laga baxo dalka Somaliland. Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan, telefishinka caalamiga Star TV, Hargeysa.